kulantiga cuna wanaagsan soo dhawaada walaalaha ku xiran channelka waxoogaal Ramadaan Kariim saaxiib yaal maanta muuqaalkan wuxuu ku taabsan yahay qisada ninkan lagu magacaabo Jack Ma balse intaana muuqaalkan u gudgal saaxiib yaal markuu aad muuqaalkan laag saara sidoo kale asxaabtina kala share dhaha oo gaarsiiya waa kana muuqaalkii ee daawasho wacan Jack Ma wuxuu ku dhashay magaalada Hanzhou ee waddanka China. Carruurnimadiisii wuxuu ku soo koray nolol iska caadi ah. Sidoo kale Jack Ma wuxuu ahaa arday aan ku fiicnay dhanka waxbarashada. Wuxuu ku fashilmay imtixaankiisii aqbalaadda ee dugsiga hoose. Jack Ma nolosha wuxuu ku soo maray waxyaalo fara badan iyo guuldarrooyin iyo diidmooyin fara badan ayuu la kulmay. Markii uu dhameeyay dugsiga sare wuxuu u ambabaxay inuu goobto jaamacad isla markaasna uu wax ka barto. Jaamacado fara badan oo dalka ku yaalay ayaa laga soo diyaay Jack Ma balse ugu dambeyntii Jack Ma waxaa laga soo ogolaaday jaamacad markaas waddanka u muuqatay inay tahay jaamacad mataqaanaa liisi ah oo mataqaanaa dambaysa waxbarasho fiican laga baran wuxuuna galay sanadii 1984 ayuu galay jaamacadaas Jack Ma markii uu dhameeyay jaamacadda Jack Ma wuxuu noqday macallin English intaas jaamacadda uu soo galin waqtigii iskuulka Jack Ma luqadda Ingiriiska ayuu jeclaa wana ku raaxaysan jiray mar walbana wuxuu ku daali jiray si uu horumar lahaa Jack Ma luqadda Ingiriiska wuxuu dhigayay 5 sano bil walbana wuxuu ku qaadan jiray $15 ayuu waqtigaas qaadan jiray Jack Ma ugu dambeyntii 1995 wuxuu soo aaday dalka Mareykanka si uu u shaqeysto noloshiisana uu horumariyo ugu dambeyntii wuxuu fahmay internetka iyo sida looga shaqeysto balse ugu dambeyntii wuxuu yeeshay dad fara badan ee shacab iyo shaqaale ayuu la shaqeey jiray markaas asxaabna meeshii waa uu ka sameystay Jack Ma habeenada kamid ah Jack Ma wuxuu sameeyay inuu isku yeero dhowr iyo 10 asxaabtiisa kamid ah si fikrad loo keeno isla markaasna internetka looga shaqeysto waqtigaas dalka Mareykanka internetku aad iyo aad caan uga ahayn sida mataqaan hadda internetku uu aad iyo aad caan u yahay isla markaasna internetkii si ay mataqaan uga shaqeystaan waxay isku darsadeen ra'yigoodii iyo fikradoodii si mataqaan website loo abuuro isla markaasna lacag looga shaqeysto balse meeshii waxa ka dhashay website-ka lagu magacaabo alibaba.com waana website caan ah waqti xaadirkan waxa laga leeyahay dalka China sidoo kale website-kiisa waxa ka shaqeeya 20,000 oo shaqsi waxayna ka kala yimaadaan 70 dal oo ku kala taala daafaha dunida markii uu dib u soo laabtay dalkiisii wuxuu bilaabay inuu abuuro website kale oo mataqaana wax lagu kala iibsado Jack Ma waa nin ka soo maray nolosha jab kala duwan iyo diidmooyin fara badan balse maantay waa midii ka dhigtay inuu mataqaana billionaire noqdo hantiisa waxa lagu qiyaasayaa waqti xaadirkan inay kor dhaafaydo 30 bilyan inay kor dhaafayso Jack Ma hadda wuxuu ku qodbayaa jaamacadaha adduunka ugu sarsareeya dad badan ayuu u yahay tusaale iyo mataqaana talo wuxuuna dadka ku dhiirigeliyaa inay mataqaana noloshooda kor u qaadaan aan ku xusuusiyo dhiirigelintiisa mid kamid ah wuxuuna yiri maanta waa maalin way dhibaan tahay sidoo kale bari waan ka sii dhibaan tahay balse barida dambe waa farxad iyo raarayn yacni waad guuleysatay Jack Ma qisiisoo kale waa dadka mataqaana sidoo guuleystay kala qisooda waaye dabcan qof walba oo guuleysana nolosha wuxuu ka soo maray jaf kala duwan haddii aad rabto inaad guuleysatid waa inaad nolosha ka soo martaa juhdi fara badan oo dadaashaa qof walba oo dadaalna waa u gaaraa asxaabay qisadayna maanta halkan ay ku egtahay